munaasabaddan ballaaran ee qalinjabinta ah ayaa loo qabtay dufcaddii afraad ee ka baxda mashruuca farsamada gacanta ee hay'adda Faro Foundation waxaana tiradoodu dhammayd 82 arday. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada, mas'uuliyiinta hay'adda Faro Foundation, mudan iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii munaasabaddan waxaa ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay madaxa farsamada gacanta ee hay'adda Faro Foundation, Cabdicasiis Ismaaciil Cismaan, iyo madaxa waxbarashada ee hay'adda Faro Foundation, Muuna Axmed Jaamac, iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday hay'adda Faro Foundation. Program kan farsamada gacanta ee Faro wuxuu noo bilaabay 2021 hadda wuxuu noo marayaa sanadkii shanaad uu marayaa waxa ka qalin jabinaya dufcaddii afraad ba hadda inoo qalin jabinaysaa oo ka kooban 3 qolo oo kala bartay 3 xirfadood kala duwan. qolada koowaad ugu koonaysa dharka buluuga ah xiran waa qolada painting and gypsum board ka bartay. qolada labaad waxa weeyaan qolada biyaha baratay waa qolada dhexda ku jirta ee dharka greyga ah xiran. qoladaasna waa 720 arday oo bartay plumbing and piping-ka oo biyaha oo labadii qayboodba haday qaybtii sanitary-ga noqoto iyo haday qaybtii fresh water-ka noqoto. qolada saddexaad oo qolada green-ka green energy waad maqasheen adduunku xagga green-ka u soo guuraya tamarta la cusboonaysiin kara loo guuraya ama dabayl ha noqoto ama qorrax ha noqoto ama biyo ha noqoto. guud ahaan iskuulku imika wuxuu soo saaray muddo 5 sano 293 technician buu soo saaray runtii oo waxa weeye waliba qualified ma oran karaa. sharaf weyn ayay noo tahay inaanu la farxno ardaydeennii maanta dhameeyay Faro TVET program. hay'adda Faro waa hay'ad aad xoog u saarta horumarka waxbarashada Soomaaliland. kulligeena waan wada ognahay in ay waxbarashadu tahay shayga kaliya wax kasta bedeli karaan. hay'adda mashaariic kala duwan bay ka shaqeysaa marka laga hadlayo waxbarashada waxaana ka mid ah mashruuc la yiraahdo barbaarinta carruurta yaryar iyo mashruuc la yiraahdo GPS ama Government Primary School Program iyo iskuuladeeni Faro Primary Faro Schools, Faro Primary, Faro KG iyo Faro Sheikh Secondary School. marka la isku geeyo tirada guud ee ardayda ee ku jira mashaariicdeena waxay u dhow yihiin 8,000 oo arday. geestooda waxaa halkaasi ka hadlay ardayda waxbarashada dhammaystay ee munaasabadani loo qabtay iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adaha daneeya waxbarashada farsamada gacanta iyo marti sharaf kale. haddii maanta loo eego halkeenu maalintaasi taagnayn iyo maanta ardaydaasi maanta halka joogto waxay ku qalabaysan yihiin xirfadii kala duwanaa ee barteen isugu jira plumbing, electrical iyo painting and gypsum. hay'adda Faro Foundation waxay naga caawisay inaan noqono technicians ama waxa weyn xirfadlayaal maanta u diyaar inay suuqa galaan. anagu waalidiin barnaamij waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in hay'adda Faro Foundation iyo macallimiinteedu ay ardayda si wanaagsan u bareen. afka waalidiinta ku hadlaya waanu idinka mahadnaqanaa waxaanu ku soo koobay ilaahay khayrkiina ha badiyo oo jazakumullahu khayran. dad sharaf laatiin ardayda xirfadda baratay inay ogaadaan in naftooda u aqoonsadaan furihii guusha inay gacanta ku hayaan. qofka xirfadda bartay waa inuu ku faanaa waayo waxa tahay shaqo abuure iyo shaqaalaba waad inaad markaa ku faantaa muhiima. maanta hay'adda Faro waxay idin siisay furihii xirfadda laakiin inaan halkaa kaga tagin. haddaad u fiirsato cusurtii dahabka hayay islaamku soo maray casrigii cabaasiyiinta iyo kii umaawiyintaba farsamo gacmeed bay ku shaqaynaysay. xilligaana reer yurub waxa u yaqaanaan midhiifayaal beeryar amba xilligii jaahilnimada. innagu waxaynu horumar joognay intii ay hooyooyinkeen farsamo gacmeed hayeen. deedna waa ka gaariye yidhi salligii bacbaa lagu bedelay soo galeetiya danbaa tiri sancaawgu hadduu soo fii dhigay qabyaduna wax soo saarka dhacayba la socotaa kaba ma samaysan karno. agaasimaha waaxda farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada, barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex ayaa iyaguna munaasabadani ka hadlay. waa inaad ku tala gashaa haddii aan la yiraahdo qalabka maanta lagu siinayaa inaad adigu qalab ku soo kordhiso oo raggan maanta waxaan sameeyay waa adoo kale kii waxaan sameeyay lahaana waa adiga ka faa'iideyso aqoontaada. waxaan dardaarankayga ugu dambeeya ku dardaaraya inaad noqotaan dad bilaa balwada, inaad iska ilaalisaan balwadaha. sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa hay'adda Faro oo run ahaantii wasaaradda waxbarashada waxa weeyaan si adag ama si dhow oo aad u wanaagsan oo u qiimo badan waxa weeyaan ula shaqeysa.
ولبنا كجارهان حفيز كا وحوي فرسمة قعنت وحوي هذا ولا شيء سيء حفيز هذا كله وزارة وحبرشة وهن أوسك حريقية رنهانتي إن مشروعا فرسمة قعنت فارو أي ودا ويهمد قوليستي إسلام كان من الرأي وغيران سيدا وحوي على شيء هل كان لبيس تدري عدوى مانتي نوفردية وصدق حرفوض كل دونا بلامكي أما بيجلنتي iyo solarkii ama tamartii wixii loo oran jiray iyo qurxintii ama decorationkii wixii loo oran jiray decoration chipsinkii wixii loo oran jiray ka wasaaradahan iyo xafiisaana waxaan diyaar u nahay inaanu si dhow iyo si wanaagsan insha Allah doolarada la shaqeyno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya dhalinyarada wax weyn qalin jabisay iyo waalidiintooda iyo macallimiintooda insha Allah doolar dhaado faarana waxaan leeyahay halka insha Allah ka sii wada 300 kuma filla dalka intaasoo 300 baa insha Allah lidinka doonaya ardaydan qalin jabisay ayaa tiradoodu dhammeyd 82 arday oo dhameystay waxbarashada kala duwan ee farsamada gacanta waxaana halkaasi gunaanadkii lagu guddoonsiiyay qalab dhameystiran iyo shahaadooyinkii cadaynta u ahaa aqoontii ay halkani ka barteen